dhegaystayaal tanina waa qaybtii sideedaad taxanihii mahmaahda Soomaalida welina waxaanu wadnaa tusaalayaashii aanu ka bixinaynay mahmaahda sheekadii ay ku baxday lahayo ha yeeshee la iloobay cidii curisay ama tiri marnaba waxaan muran la gelin karin koritaanka carruurtu inuu ugu wacan yahay marka aabba iyo hooyaba ay u wada joogaan oo jacaylkooda iyo daryeelkooda diyaarka ah ay ku hoos barbaaraan ilmaha labadooda isla helaa wuxuu ku koraa caafimaad ooga iyo mid maskaxeed oo markuu nolosha waayeelnimo dhex muuquurto wax weyn ugu filaada uuna u aayo waxay u badan tahay waalidkiisa oo dhagadhani canugii ay soo wada koriyeen inuu isku kalsooni iyo geesinimo la weynaado marka la barbar dhigo kii yaraan ku agoontoobay ama ku rajoobay ama ay labada guuldarraba isu raaceen iyada oo labadooduba ay sidaa laga maarmaan u yihiin ayaan haddana aabba iyo hooyo la isgarab dhigi karin gaar ahaan heerarka hore ee koritaanka inta uu ilmuhu maraayo markuu dhasho ilaa marka uu 10 jirsanayo heerarkaas iyaga ah hooyo lala mid maaha inta badan aabba waa maqan yahay oo xoolaha iyo hawlahooda ama sadcaal ganacsi ayuu qoyska uga fogaadaa qofka canuga ka warqaba ee cudur iyo caafimaad wixii uu ku sugan yahay la socotaayo waa hooyada iyada ayaa wax siisa iyada ayaa bal inuu baahi ku seexday markuu seexdo bogga iyo beerka ka taabata iyada ayaa hadal iyo hadaaqba barta socodkana ku tacliimisa iyada ayaa wixii u daran u sheegta wixii u roonna ku hanuunisa markuu ooyo iyo markuu farxaba waa halka uu ku soo ordo waa gaashaan adag oo tabaryaridu intay hayso bala oo idil uga gudban dulucdu waxay tahay haddii aanay kulley labadoodu u wada joogayn waxaa canuga u roon inuu agoontoobo intii uu rajoobi lahaa iyaga oo muluq ah oo dhabta iyo dhabarka lagu hayo carruurta inta rajowda ka noolaataa waa nasiib badan yihiin aabbahoodna allaha ka dhigay xanaanadii hooyo cid u haysa ma helaan wax halkeedii u geli karaana ma jiraan si ay haddaba ilmahaasi daryeel habboon u helaan waxay soomaalidii hore u soo rogtay dhaqanka xiskiisanka la yidhaahdo hooyadii carruurta rajada ah ka tagtay walaasheed ayaa aabbihii la siiyaa si ay gabbaad ugu noqoto carruurtaas ay habaryarta u tahay kuwa ay dhali doontana u walaal noqon doona taasina waa haddii ay carruurtaasi nasiib leedahay oo habaryartood loo guursado haweenaydii dhimatay gabar walaasheed ah oo lagu xiskiisamaa haddii aanay reer xididkii u joogin wuxuu aabbuhu carruurtaas rajowday u geyn jiray haweenka kale ee uu qabo middood haddii ay jiraan haddiise aysan jirin oo haweenaydii ka dhimatay uu xilo ka lahaa naag cusub oo ilmaha rajada ah la korisa ayuu u guursan jiray iyada oo kuwaas haysa ayay iyaduna kuwa kale dhashaa markaas baana kuwii rajada ahaa dhibaatadoodu bilaabataa sida Soomaalidu badi u rumaysan tahay ayada waxaa lagu xantaa ilmaha uu ninkeedu dumarka kale ka dhalo oo ay hayso inay gacan bidixayso ama aysan u roonaan ilmahaas iyaga ah hooyo dhimatay ha ka tagto ama haweenay la furay ha laga reebee waxay markay koraan u badan yihiin inay aayooyinkood ka sheegtaan siyaabihii ay ula dhaqmi jireenna ku eedeeyaan inkastoo aysan dhammaantood sidaa wada ahayn haddana waxaa aayooyinkaa lagu xantaa carruurta rajada ah ee ahayaan inay hawsha ku badiyaan oo ay iyaga wax walba u diraan inay dilaan oo inta odagu maqan yahay ay garaacaan odaygu markuu soo hoydo inay ku diraan oo gafaf aysan gelin u maleegaan caana iyo calalis waxa carruurta la siiyo inay ku yareeyaan haddii kuwaas iyo kuwa ay iyadu dhasha diriraanna way u garab goreeyaan oo kuwooda u hiiliyaan waxaa ka daran dagaal maskaxeedka kale ee carruurta rajada ahi ay aayooyinka haya qaarkood ka mutaan waxaa lagu eedeeyaa inay kuwaasna doqomo wada salleella ah inay yihiin dubaaqooda ku beeraan kuwa ay dhaleenna diricyo meelan oo geesinimo iyo caqli meel dhigtay ku tilmaamaan maxaa sidaas ugu wacan iyaduna waa su'aal meesha ku jirta oo culimmada nafta jawaab uga baahan silaca iyo saxariirta canuga yar ee rajooba uu aayadii ka mudan karo waa aayo xun haddii ay tahay waxaa inoo muujiyey hormuudka maansayahanada Soomaalida raaga ogaas oo gabayadiisii jacaylka ahaa midkood ku yidhi sida inan yar oo hooyadeed aakhiruu hooyatay
وآبهد أقل متكل الميل اللي نسيح شي هدبا وحان لا أروغونا يا وركو تالذبي sheekooyinka gacan bidixaynta aayooyinka ku saabsan waxaa ka mid ah middan soo socota ee la wariyey inay dhex martay wiil yar oo rajay ah iyo aabbihii waxaa la yidhi inan yar oo gabannimo ku rajoobay ayaa aabbihii wuxuu u geeyey haweenay kale oo u dhexday meesha la joogaa waa miyi waxaa la haystaana waa caanaha oo maalintiiba 2-3 jeer carruurta la siiyo waa sid la yaqaan oo canug waliba og yahay goorta la siin doono iyo tirada la siin doono rajagii wuxuu dareemay caanaha ay aayadiisiisaa maalinba maalinta ka dambaysa inay sii yaraanayaan haruub kala baran ama qarmadooba ah ayay isaga ku taagtaa halka kuwa ay iyadu dhashay haruubkoodu wuu milaalan yahay oo xoorta caanahoodu ay meel fog ka muuqato rajagii waa fakeray wuxuu fala ayuu garan waayey hadduu iskala hadlo wuxuu ka baqay inay aayadii disho ama ay ilmaha kale ku dhex caydo dabadeedna ay ku oriyaan wuxuu ka cabsaday inay ku ceebayso inuu hunguri badan yahay amaba uu cirwan yahay labadaa tilmaamood oo yar iyo weynba soomaalidii hore ee reer miyiga ahayd in lagu sheego aysan jeclaan jirin galabtii dambe ayuu u tegey aabbihii oo duleedka reerka meel ah awr uu soo hooyey ku dabraaya waa u dhowaaday odagiina inta madaxa u salaaxay ayuu weydiiyey waxa uu rabo kolkaas buu ku yidhi aabbow waxaan adigana wax kaa dhibin anigana wax ii ah aayaday ma ii odhan culayska hadalka isaga oo la yaaban ayaa odagiina la soo booday oo waa maxay kolkaas buu yidhi wiilka haruubka u buuxi ku dheh taas oo noqotay maamaha la soo qaato kolkii laga sharqamiyo rajay waxa aayadii ka haysta